mid adala music waa xaraan shan aayado quraan kariimka ka mid beddelishadaan shantuba daliil uma aha qofka u daliishada heesta iyo musiga xaraana mu asiibin uu gaf anu ma odhanay been bay sheegayaan oo aan wax tiraamaya laakiin waxaan odhanayaa hadalkaas ay sheegeen run maaha dadka anigu aan dhageystay waxa ugu yar Yurub Geenyo iyo Maxamed Saciid Biik isaga maxaa la ilaahay fanka ku soo celiyo fanka waliba de hagaagsanday aayadaha dilishan walaal waxa kamid ah aayada koowaad aayada lixaad ee suurada Luqmaan hadii jir aayada qof kasto leh muusiga heesta xaraana uu la soo boodo markiiba وآية اللحاد يا آية التطبعات كلها ومن الناس من يشتري اللهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وآية دليشدان آية دليل أمها إن الدليل حارنتنمين هيست موسيقى تونا هين لحية طبعا لحية طبعا أرنمود من قاعدين كرينا الدليل هاي بوجان من قرأ قفكي داخله وكذا بوكسن كرا وحنو هي بيني بوجان سارة قبل دي يريد سويدش كهيد سنة 1997 أما كون سجال بقول سجاش أنتو دبادي دقنا دي اسمها نقاصية حافظة غريفا جورس فيكن صح إن دقمة ين فسترا فريلوندا مقالة دي يتبوري دل كسويدا إني هاي جمال كيو جوجبا ودالاتي شالق ساني وريقا مقال واحدة بتقول نشرين موسيقى هذا دي قلت لي هذه هذا بقى أما هيست موسيقى له ولا الحاران مقبع عنو كنيت هاي صاروا حي هيد قفكي يقول الريبان سلي هاي سير رومانتي كانوا على هذا إنن بي هدير سويدشة هاس هادين نلهانو هاستو قومي دهان waxay kamid tahay hadalka hadii la yiraahdo qabiil ahaan waxay kamid tahay suugaanta qoys ahaan waxay kamid tahay baxda maansada weeyaan hadii qof ay noqon lahayd waxa magaceed hees baa la oran lahaa inkastoo muusiga qudhiisa la isku hayo muusigu ma qalabkan laftarkiisa baa mise waa qalabkan codka ka soo baxay uu sameeyo keeba muusiga ma gitaarka halka yala baa loo dhan yahay muusig mise gitaarka markan kaga sanqariyo xadkiisa codka in maqlan dhigta soo gaadhay muusiga taa in ka soo la isku hayo maalimaha kamid ah burca joogno ayaa waxaan maqlaynin wadaad oo ka sheekeynaya sawiradu guryaha sawiradu yaalaan malaa'igtu ma galaan xadiiskii runtii aad bay ugu dhacay oo dee waxaan mooday runtii baan mooday inuu sheegayo dabcan runtiina ma ahayn oo waxa uu sheegay isagu ma fahamsanay uu qalad fahmay dabcan anagina uu nasi qalad fahamsi laakiin adduunka ilaahay shucuubta muslimka ah oo dhan Soomaalida dadka ugu fahamka liita weyn diinta fahamkeeda ay ku liitaan laakiin barashadeeda aad bay ugu badin برامجك عاو حنا نقول مرتي عبد الفتاح قريشي عبد الفتاح وقراء دايرة وأنا قراء بوجا دين معي حسا عبد الفتاح سودو برامجك قراء لك أنا عبد المحسن تاهي وأن دوحي والله تانكي وكم عبد الفتاح وحويا تنسيق كوبان وقحة وإن أحمد محمد صح قريشي نوالقونا نسا صح وأنا صومالي دي سيدي waxaan isku qeexay hadii waxaan waa muslim xoolo dhaqataa Soomaali ayo muslimna weeyaan caqiida ahaan oo dhaqan ahaan waa xoolo dhaqato sax oo beeraley ma xoolo dhaqato meel kala badan baad ku soo noolaad yani waqti badan baad meel kala duwan ku noolay meelaha digriga waxaad qaadatay iskuulkii oo kale waxbarashadayda kale haddaan in yar ugu noqdo waa run sidaad sheegtay weeyaan waxaan ku barbaaray aan ku soo qaatay noloshayda intii ugu horreysay waddanka Sweden magaalada leediya Tabori dadka localka Swedishka waxay yaqaanaan Tabori dadka kale laakiin in general sida kale waxa loo yaqaan Gothenburg oo sida dalkaba dadka Swedishka markay Sweden xagad ka timo kulay xukun xan ka misfaariya laakiin dadka kale waxay yaqaanaan Sweden magaalada Tabori dadka localka Tabori bay yaqaanaan dadka kale waxay yaqaanaan Gothenburg marka magaalada Gothenburg ama Tabori baan ku soo qaatay noloshayda intii ugu horreysay markii dambe waan soo noqday waxaan ku soo noqday dalka magaalada Burcabaan iskuul kadib uga bilaabay iskuul loon jiray dugsi loon jiray Cabdalla Nuuri dugsiga saaran waxaan ku dhameystay Hargeysa markii dambe waxaan u tagay waxbarashadii heerka maxay post graduate ama jaamacadda waxaan u tagay meesha la yiraahdo Pakistan marka magaalada Karachi la yiraahdo magaalada xeebada Pakistan weyn ay leeyihiin bakliya ayaan ka baran jiray marka digriga maxaad ka diyaarisay digriga waxaan halkaas uga soo diyaariyay laba digri baan ku soo diyaariyay master marka waxay isugu jireen Islamic studies iyo educational science labadaas soo kala qaatay markii dambe dalka waxaan ku soo noqday adigu 2022 sidii aan joogaa si fiican buugga waxa la yiraahdaa diin ma yahay magaca buugga yaa u dooray sababtaad ugu doortay maxay tahay ayaanay magacan oo kale horta diin maayo heesaha ereygaas oo kale sidoo u rakiban yahay oo kale dabcan anigu malihi waxa weyn hadii jeer qofku markuu wax qorayo meelaha wareerka ugu badan uu ka soo gaadhay dhalinyarada waxa kamid ah qofku waxa laga yaabaa buuggiisa qoon bilaaban inuu ka fikiro in buugga maxaan bixiyaa
صح halkaasoo kale qofku istak buu ku galaa hadduu halkaa ka bilaabo qoraalkiisa buugga maxaad u bixisa waxa laga yaaba inaan waxba qorinba صح waayo helitaankiisa ku adkaanaya marka buugga waxbaa laskaga sii bixiya waa laska bilowda adigu hawsha mawduuca aad doonaysa inaad wax ka qortay haddii aad haysid xogtii aad la xidhiidhay aad soo raadisay aad haysatid ay umka u baahan yihin la qorown waa laska sii bilaabdo magaca waxba lagama fikiro buugga markii aan bilaabayay magaciisa maan haynin laakiin mar dambe aan gudaha ku dhex jiro ayaa waxaan akhriyay maanse uu leeyahay allah u naxariistee macalinkeenii iyo murabbigii maxamed ibraahim warsame siciid hadraawi الله allah u naxariisto oo waxaan u malaynayaa maalin dhaweyd 18 dhowr cashay baan soo dhaafnayba ka hor ay ku beegantay sanad guuradii labaad geeridiisa kasoo wareegtay صح marka ilaahay naxariisaan weydiinaya waxaan akhriyay maanse hadraawi leeyahay leeda deyn maayo heesaha marka haddii aad buuggaad sooba rogtay waxay ku jirtaaba xaashida ugu horreysa baan ku qorayba صح maansadaas waxay odhanaysaa aniguna hed mooye inta hibada eebiyo hawraarta maansadu iyo hareerayaaliin hal abuurku ila jiro hiyigaygu nool yahay hamigaygu shidan yahay hankuygu lamaan yahay waxaan higsanayaa dhul fog iga hayrayaan haasaabuu furan yahay qodob laga hadlaa jiro diin maayo heesaha marka waxaan u doortay maadaama buugga aan kaga hadlayo heesta iyo muusigu maxalaalba masoo xaaraan صح anigu horta mabda halkan ka taaganahay ama waxaan aaminsanahay inaan qorayo go-aankayga صح marka diin maayo heesaha dabcan waa go-aan shakhsi ah buugga laakiin ciwaankiisa haddaan ka dayn lahaa kan wuxuu noqon lahaa heesta iyo muusigu maxaaraanba oo su-aashaas weyn waxuu ka jawaabaya صح waa laygu qabqabsaday dabcan waa laygu maxaad ku qortay halkaas deyn ma heesaa haddii baad aad tidhi maxaad u raacay heestii muusig maxaaran baad already go-aan baad gaadhibi صح laakiin aniguna si kalaan soo difaaca dabcan buugga marka hore se la furaa waxa soo baxaysayna saara ladha saar yahay waana qofkaad u iibeysay kolley buugga nin mustafa la odhan jiray waxaa odhan jiray su-aashaas waa isku soo haad Isku soo dabcan haad oo- laakiin haddana haddii laga fursan waayey waan ka jawaabayaa صح iyo tabori saare waxay ahayd qofkii ugu horreeyey baan isleeyahay si romantic aan u jeclaaday inan bay ahayd yar swedisha isku xaafadaan ahayn dabcan waxaan degnay dhismaa naga hooseeya markaas buugga had iyo jeer waa su-aalaha ugu badanaa inay la weydiiyey bay ka mid tahay صح waxaa ku qoran buugga hibeyntiisa sidaynu naqano soomaalida had iyo jeer waxay dhaheen waxaan u hibeynaya buuggan hooyaday ama waxaan u hibeynaya aabbahay صح ama gabadhaydoo ii dulqaadatay inta buugga qorayay iyo ciyaalkayga صح markaa bar waxaan isku dayey had iyo jeer waxaan jecel lahay oo kale something different oo kale inaan si ka duwan oo kale bal inaan isku dayi karo inaan samayn karo oo aanan raacin dee dariiqa la wada marayo yacni marka buug waxa ku qoran waxaan u hibeynaya buuggan saara gabadhii yarayd ee swedishka ahayd ee sanadkii 1997 ama 1997 degnadii dhismaha naga hooseeya xaafadda Grevegårdsvägen صح degmada iyo Västra Frölunda صح magaalada iyo Göteborg dalka Sweden markaas saar waxay ahayd ma garanayo inaan jeclaa runtii inaan xiiseynayay run abde ma kala garan karo waayo dee da'deed baad beeratay dujin milaa sana صح laakiin waxay ahayd qof kolley aan u soo golay niyadii iyo nafteedii iyo nafteedii way soo golaayeen waxaan garanayaa anagu jardiinka gurigayga wuxuu lahaan jiray buildingkan dee ma jiraan se guryaheena lagu jiro kale waaweyn oo qof kasta intuu deerka iska furo dee albaab gaadhiisa xareysan iyo waxaas ma jiraan meesha waxaa lagu nooliyay apartment yar yar dhinaca naga sii jeeda apartmentigan deganay baan fadhiisan jirnay kaabada marka waxaan garanaya inaan waqti badan wada fadhiyi jirnay laakiin aniguna aan ogolahay iyaduna ay ogoshahay laakiin adigu something jacayl oo kale ma laha buu ahaa saaxiibadaadii yaraantii wey saaxiibadeedii yaraantii marka maadaama buug had iyo jeer heesuhu dee waxyaaba badan baa loo adeegsadaa jacaylkaa loo adeegsadaa halgankaa loo adeegsadaa hawl fududeyn baa loo adeegsadaa lakin waxa ugu badan loo adeegsadaa malaha waa heesaha iyo jacaylka iyo dareenka in lagu cabiro dan waxaas maadaama aad hees ka hadlaysid bal dareenkaaga ugu horreeyay jacayl qofkaad u qaaday bal buugaad u hibis waxaan ahay 7 jir baan ahaa inantii saara imika way wanaagsan tahay way guursatay waxay degan tahay magaaladii Göteborg bay degan tahay laba ciyaal iyadoo dhashay macalimad waxay ka tahay iskuulkayga aan dhigan jirnayba aniga iyadu ay macalimadkada markii ugu wardambeysay inkastoo aanan imika sanad iyo dheeras maanan maqal laakiin nasiib waxaan baan rajaynayaa dee noolaad adig iyo ninkaagu male shacaylka 7 jirkii kaloo jacaylun baa la odhan karaa waay dabadii cid ma jeclaanta والله horta laba mar baan nolosheeda wax jeclaaday dabcan laga yaabaa kulli qofka dee caadi fadaxaan qof kastoo caadi fadaxaan ama emotionally bad qabaa waxbuu jeclaanaya haddaad aragtid qof aan waxba jeclaanin waxba ka siya meelun bay wax kaga sii yihiin waxaa jiray nin shacir carabi baa jiray suugaanta carabi daban aad iyo aad u jeclahay wuxuu yidhi idaa lam tacshaq walam tacrif ma lhawa qum factalif tibnan fa anta ximaaru nin baa yidhi haddaan weligaa waxba jeclaanin jacaylkana wuxuu yahay in aanad garanayn ama aanad aaminsanayn qom orodka adigu iska daaqtag fa anta ximaaru dameer baa tahay markaas mar labaad waxbaan jeclaaday laakiin markii labaad ismaanan calfan inantii adigu dabcan waxaan isku jeclaan markaan burca laygu soo celiyey aan soo noqday waxaan sidhiyaa jacaylkaygu yaraanta u badnaa
anigoo yar baan burco soo noqday iskuulka Cabdalla Nuur waan ku sheegay inaan galay iskuulka Cabdalla Nuur baan wada dhigan jirnay inta صح markaas halkaasna jacayl kale bay iga haleelay jacaylkii marka inantii waan isweyn hadana marka kaym si jirwade kanta dib jirwade kaas waxa laga yaabaa inaan maji I don't know waxaan malaya 10 aad waan dhaafsanaa waa kii yaraantii sina waa yaraantii marka dabcan de saara wixii jacayl ma laakiin intaas baan si dhab ah baan u jeclaaday markii dambana sabab anigu aan lahaa baan isku weynay صح inantii calafku ma nan yaran wala guursaday waa hooyo dhowr caruur leh ku nool wadamada Yurubta mid kamid ah صح aad baan salaamay biinay daawanayso de halkan dhig daawan karto waan salaamaya si wanaagsan waliba qalbiga salaamina عبد الفتاح buugga si guud nooga warbix ayaanay buuggan waxaa leedahay waxa weyn horta waa kitaab buug af English kitaab af Carabiyun ma garanayo Soomaali wax lagu yiraahdo laakiin dadku markaan nido kitaab waxay markiiba u fasiranayaan xagga diiniyan waa kitaab diiniyan صح marka kutubta diinta hadduu ka mid noqon lahaa kitaabkan wuxuu noqon lahaa kitaab fiqiya صح waayo mas'ala fiqiya buu ayuu ka waramaya صح masaladaas ma xaraam baa ma xalaal baa muxuu islaamka qabaa waa sidee saas u hadlaya marka buuggan ama kitaabka ma waxa doontid waxa la yiraahdaa diin ma yahay heesaha waxaan kaga hadlay hal su'aal oo kaliya baan kaga jawaabaya oo ah su'aasha ah heesta iyo muusigu ma xaraam baa صح ma xaraam baa markaan leeyahay waa islaamka dhexdiisa oo kale miya ma xaraam baa soo xalaal oo loo gulyahay taas buu walaal ka jawaabaya marka waxaan ka istaagaya dhinac kasta sababtay ku dhalisay haddii imika oo kale laga yaabo in mala su'aal soo socota tahay ama inaanay ahayn baadan ku jirin hadday ku jirtaan ka bisi jawaababa صح sababtay ku dhalisay oo kale waxa weeyaan arrinkan oo kale wanigii ku sheegay Islamic baan ku soo qaatay studies Pakistan صح waliba takhasuskayguna wuxuu ahaa master degree aan ku qaatay xadiiska markii masaladan anigu marka ruuxan kamid ah dadka aaminsan inay muusigu xaaraan horta heesta iyo muusigu way kala duwan yihiin hees haddaynu nidhaahno heestu qoomiyad ahaan waxay ka mid tahay hadalka haddii la yidhaahdo qabiil ahaan waxay ka mid tahay suugaanta qoys ahaanna waxay ka mid tahay bahda maansada weeyaan haddii qof ay noqon lahaydna waxaa magaceeda hees baa la odhan lahaa iyadu waxa weeyaan waa midho laxan la saaray luuqna loo geeyo qof ku heesayo sida imka tusaale cishadu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol wabiyada cartamay cirfida badka ka xidhay haddii aan imka muusig lahayn saasaan u idha kale waa hadal haddii laxan la raacina laxanku waxa weeyaan sida xasan aad imka u qaaday kale cishadu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol qaabkan u qaadanana waa laxan luuqduna waa tan codkayga ku soo saarayo hees intaas leeyahay muusigu isagu waa shay kale oo dee waa ama waa waxa weeyaan waa kaban ama waa darbuko ama waa organ ama waa violin ama waxa weyn intaas oo orchestra dhan waa adiga arkay la soo gigiyo qof wax garaacayo muusiga kaas leeyahay inkastoo muusiga qudhiisa la isku hayo muusigu ma qalabkan laftarkiisa baa mise waa qalabkan codka ka soo baxay uu samaynayo keeba muusiga ma gitaarka halka yala baa loo dhanyahay waa muusig mise gitaarka markan kaga sanqariyo xadkiisa codka in maqlan dhigta soo gaadhaya muusiga taa inkastoo la isku hayo marka buuggan wuxuu ka jawaabaya horta heesta oo kale waxaan u maleynayaa inaan khilaaf badan ka taagnin beeda oo adigu iyo anigu toonayeen ku kala aragtid duwan oo hees waxa la oran karaa ada cishadu ilaahay cirka taagay udubli hadaan dad kulay ba isku qabsano min xaraam musa xalaal marka muusiga baa ay dadku hadda jeer isku qabtaan waxaan ka hadlayaa hadaba muusigu ma xaraam musa xalaal hees oo dhan ilaahay saqar xaraana ba jira yagin waan kala saarayaa maxay ku xaraantinimo mise maxay ku xalaalinaysa culimada isku khilaaftay laba culimada isku khilaafay laba garabkaasi muxuu daliishaday garabkana muxuu daliishaday kaasi muxuu ku khaldan yahay kani muxuu ku saxsan yahay anigu sayaan ayidsana intaas boolaal conclusion-ka soo ururaya labada garab ee isku khilaafsan maxay kala yihiin maxay kala aaminsan yihiin walaal horta masaladu waxa weeyaan waxna waa asal waxna wax gadaal ka yimi shay kasta oo dunida yaala shay kasta ama ficil ha ahaado ama hadal ha ahaado ama wax kale ha ahaado asalkiisu waa xalaal ilaa la helo nas xaaraantinimeenaya shay dunida oo dhan oo xalaala ayaa qaar ka mid ahun calaamad la mariyo misale kaas isagoo xaaraan joojiya kaasna waa xaaraan joojiya damaana inta xalaasha iyo xaaraanta mar walba waxaa badan xalaasha way xalaashii dabarka furneed baa dhowr xaaba la calaamaday khamriga isagu waa xaaraan kan kale sinad waa xaaraan kaa kale xanta iyo beenta waa xaaraan saasa loo mariyey marka culimada isku khilaafsan shaygii asalkii muusigu asalkiisu xalaal buu ahaa culimo baa soo baxday tiri waa xaaraan waxbay daliishadeen culimo kale baa ku khilaaftay iyagoo kala hodhigooda oo sidan islaamka u barteen fuqaha u yihiin ay ka u fadwoon karaan qaar u fadwoon kara ayaa soo baxay war arrinkaas xog kama jiraan xaaraantinimadooda dabeetana labada qolobaan anigu isku dhegaysanayaa
weliba waxaan isleeyahay buugga intaan qorayo hadii jeer qofku wuxuu aaminsan yahay markuu qorayo ma cadaalad falo wuxuu isagu qabuun buu naxnaxya kuwa kalena hawshooda wuu xumeeyaa waxaan isku dayay laakiin aan isleeyahay waan iska ilaaliyo buugga intaan qorayo ayaanay inaan agagasnimo doodo oo qolada kale in xagxagto inaan nimanka dhulka la aan sii karbaasho dabadeedna inaan cadaalad falay waxaan u malaynayaa sababtaan u malaynayaa cadaalad falay waxa weeyaan waxaan ku bilaabay qolada le wax xaaraan waxay daliishadeen 5 aayadood oo quraan kariimka kamid ah iyo dhowr iyo 10 xadiis kamaan tagin waxay daliishanayeen si qofka hadhow dib uga akhrin doona uu ogaado maxay daliishadeen oo aanan u qarin waxoodii yagii markaan wada tahay qoladii kalaan dhiban oo maxay ku burinayaan arrinka qofka buugga akhriya intuu la bilowday ila dhameystaa waxaan is leeyahay haddii uu diidayo oo khilaafayana wuxuu helayaa wax cad oo igu khilaafo haddii aan u taageerayana wax cad oo igu taageero helayaa oo yacnihi uu kaga bogsanayaa masalada marka saas kala ma nusad xawla heeso maxaaran baa soo xala heesta walaal se musiga heesaha iyo musiga markay israacsan yihiin laakiin waxa la yiraahdaa heeso xaaraan ma laakiin heesaha iyo musiga markay israacsan maxaaran baa soo xala way horta heestu halkaadan ka bilaabo marka ugu horeysa had iyo jeer su'aasha had iyo jeer mushkiladda keenta wataa heesu waa xaaraan baa lagu leeyahay qofka dadku war cishadu ilaahay cirka taagay u dublay xaaraan baa wuxuu may dee maxaad u leedahay heesu xaaraan baa su'aashta kale weydii horta hees ayaana hadad maqashid heesta waa hadal hadalka imka xaaraanta iyo hadalka xalaasha maxaan ku kala garanaynaa macnaha uu gudbinayo kawaan iyo kaxum yani hadalka markaad fahamtay macnaha uu gudbinayo ayaad oran kartaa hadalkaas ama haddii hadalku cay yahay hadduu dana heesa lagu heesaba haddaan cay ku soo heesay imka laba calis kuma qabanayno xaaraan yahay music baynu la soconay haddii laakiin aan ka hadlayo waxa wanaagsan ma ogtahay curyaanka bacaga looma waa inuu caynkan loo yidhi kuwa cararaya ladan ku cimri qaataan isku qaban mayno oo aan music la socon isku qaban mayno inay xalaal tahay had iyo jeer xaaraantinimada markaan ku xukumayno heesta oo kaliya aan music la socon waxa weeyaan marka ugu horeysa inaan fahmno macnaha ay gudbinaysa markaan fahno kadib in xukumi karno haddaan iminka ku idhaahdo jaad iminka waxbaan kuu sheegayaa balsaalahaan luqadahan ku hadlo kale waxaa ka mid ah dhowr luqad ku hadla carabida iyo soomaaliga iyo englishka iyo luqadda urduga la yidhahdo haddaan iminka ku idhaahdo jaaduu deeri nasar khushbuu teeri badan waa hees hindiya maxalaal bam soo xaaraan ma xukumi kartid horta ilaad fahamtid markaad garatid waxay ka hadlaysa ayaad xukumi kartaa hadalku heestu dana hadba taasi ku xidhan tahay heestu xaaraantinimadeeda iyo xalaaltinimadeedu waxay ku xidhan tahay macnaha ereydaas gudbinaya haddii macnaha laba heesood baan nimanka kuu sheegi karaa weliba dee ma dooni inaan sidaa u sheegaba laakiin labadaba cumar dhuule qaado tanna aan odhan kara waa xalaal taasna aan odhan kara waa xaaraan haddii loo adeegsado qofku inan aanu qabin ama xaaskiis ahayn amaan xilaa isugu xidhnayn uu dee heesta u qaado ma banaana midna waa bannaan tahayoo hadduu iminka qaado inan yahay jamaalkiyo joogaba u dhalaatee jalaqsani wareyga maqal wax dhibaato kuma dhex jiraan hees kale laakiin cumar dhuule qaado imika ma dooni inaan sheego laakiin haddii aan sheego adigaaba odhan waa xaaraan weyn uma bannaan qofku idhahdadiya mataqaana waxba isugu qaban marka walaalay heestu waa taas muusiga haddaad igu tidhaahdii haddaba ama heesta muusiga leh walaal xaaraan ma qaba anigu inay tahay qofka qaba inay xaaraan tahayna sifooyina ku xaaraantinimo karta way jirtaa laakiin si guud xaaraan uma aha sidaas baan qabaa anigu qofka igaga aragti duwanele waa xaaraan muusiguna inuu khaldan yahay oo uu gudcurguday ayaanu arkaa respectfully أنا كو احترامي لكن الموسيقى سي حلال يمحد نوع عدين وحويان أياني حدين اسكو قبلنا إيمنكا حدين اسكو قبلنا إيمنكا بوغا اسم حلال بمسو حاران أنا قال لي مو ويديني محدكو عدين اسم حلالي هاي قف كيلي وحاران بالوردين محدكو عدين اسم حراني هاي حدين عدين ويديد أدقو أنا قد دليل بلغا مباحنا وايو أنا كل شيء كست أسل كيسوا بنانية مباح شيء كست خمر ويمك حلال بوهان لها حدي أنا تشيري لهين عايدة وردنيسا فجت كديراد خمريga يا خمريga iskaga fogaad hadaan jiri lahayn khamrigu xaraam uu noqon lahaa waaniga leemo weydiin khamrigu inuu xalaal yahay maxaa cadeynaya laakiin qofkii waa xaraam baloon maxad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynay buu aayada ilaahay quraankiisa ku yiri war ka dheeraada inna amal khamru wal maysaru waxa weeyaan wa amal shaydaan fajtanibuhu oo amara ka dheeraad ayda saxaantii markaa kuma wada doodi karnaa anaan ku qancaya laakiin iminka heesta oo kale aniga leeguma laha ama culimada qabto waa xalaal iyo muusiga laguma laha in la weydiiyaba ma xalaal maxaad ku cadeynaysaa qolada kale haddii daliilkoodu ay cuskadaan haddii uu sugmi waayo sidaas heestu xalaal muusiga xalaal ku yihiin laakiin haddana waan tabaruci karaa waan ku dari karaa waxyaaba badan oo cuskanayna xalaalta in xalaalta waxyaabaha noogu dar sidee anaguna uga ajaayib baxna waay ayaana waxaa jirtaa
waxaan ku bilaabayaa culimada qabta heesta iyo muusigu waa xaaraan waxbay daliishadeen daliiladoodii baan qoray buugga daliiladoodaasi way sugmi waayeen halkaasay muusigu xalaal ku yahay haddii sugmi waayeen xadiis daliiladaas tusaalan ku siinaya waxay daliishadaan 5 aayadood oo kamid ah quraanka kariimka cidda leh muusigu waa xalaal cidda leh muusigu waa xaaraan 5 aayadood quraanka kariimka kamid ah daliishadaan 5 tuba daliil uma aha qofka u daliishada heesta iyo muusiga xaaraana mu asiibin uu gaf anu ma odhanay been bay sheegayaan waa aan wax tiraamaya laakiin waxaan odhanayaa hadalkaas ay sheegeen run maaha maan odhan been bay sheegeen laakiin waxaan hadalkaas run maaha ha sidii doonto la macnayo aayadaha daliishan walaal waxa kamid ah aayadda koowaad aayadda 6aad ee suurada luqmaan haddii jir aayadda qof kastoo leh muusiga heesta xaaraana uu la soo boodo markiiba وآية اللحاد يا آية التطبعات كل رن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وآية دليشدان آية سي دليل أمها إن أنا الدليل حارنتنمين هيست موسيقى تونا هين لحية طبعا لحية طبعا الرماد من قاعدين كرينا الدليل هين بوجا من قرأ يقفك داخل وكجبوك سنكرا صح واتكوادي آيداس لهو الحديث بك قبل سمح لهو الحديث كبا هو حلوش ده هست أنا اللي بدي نمكن نكسل فانون هست دي هذا حاران ما صح حاران ما هي صداني مريض الحمين حداد كنت رادي محي هست لهو الحديث لأن هست لما في عربي هست وحلقوا ده الغناء موسيقى وحلقوا ده المعاسف لهو الحديث بالي هل كان موسيقى الغناء معاسف تونا قصدن كتشوس قرآن كأياني haddaad sidaa u rogrogtido from the start haddaad kasoo bilowdid ilaa halka ugu dambaysa soddonka jisa qur-aanka ku arki maysid alqinaa iyo almacaasif toona kuma jiraan heesta iyo muusiga toona kuma jiraan laakiin hadda maxay u daliishan iyagu waxay dhahen lahwi lxadiis hadalka maalayacnigaba heestaas odhanaysaa waxaa looga jeedaa heesta oo yaa ose heesta sidaa looga jeeda maxaad ku garatay in looga jeedo ilaan heesta qina ba leeyahay waxaan ku garanaa bayna cabdilaahi bin mascuud baa yidhi ku dhaartay wallahi waa heesta عبد الله بن مسعود هدي ورع عدد كنت رواي وابهاسته لكن عبد الله بن مسعود محولي ما وهاسته بين مسوى موسيقى وحيكون وهاسته أيوة يدي هذا موسيقى ما حد يقول دليشني الموسيقى بشيء كلا مدة كلا أديك دليشني عبد الله بن مسعود هاسته ميانه هي عشد ولا هيرك تاجدوا بلي وهاس محرم با وعقنا ماي أقص كاريمات ما تاسو كو وقد بيكون شبنت ولا قد كلا هذا كل شبنت حوين إلى هاي شيء وحارنتني ما ينيو خمر جلهم وحارنتني ما ينيو أري كستو إلى حارنت إلى نولا شدت كلا جريان أري سرباب لو ما ديكسدو خمري بالي زينة بالي وحارن زينة بالي وحالي بنت وبنت وكذب كي بنت كداي صح شيء إلهي مو ورنكر وين هاستا القناة وحارن اسكتك المعاسف وحارن مو ورنكر وين هذا عبد الله بن مسعود بسيدي تفسيرك ابن كثير هذا خدامك تفسيرك الدبري وحكوت تسينه إلا طبعا علماء كو خلافتي عبد الله بن مسعود oo tiri war lahu الحديث ku kabalaanay haasta hadalka ma la yacni gaar dhan balida ama cayaha hada ama habaar ha hada ama xaso dhan lahu الحديث صح walaal taasay daliishadaan way jaban tahay qof ma doonayeen sharx waqtiga inaga qaadsadaan bash 17 laakiin ciladood baan hayeen aan daliil ugu noqon karin صح ma buuga qofka akhriya buugan diinaya ayada labaad waxa weeyaan waa ayada 64 ee suurada al-Isra wastafsis man istada'ta minhum bisawtika وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا قرورا waxay kaga dhigeen ayada sidaadeen daliil bay u tahay xaaraantinimada heesta iyo muusigo heesta iyagu odhanayaan ba muuji heesta meel ku xaaraantinimada ma garanayaan heesta ilaanu cashadu ilaahay waa ningaas loo afaqdanay laakiin haddana waxay isku dhex daraan waxay yidhahdeen waa xaaraanayda ama ayada saw daliila oo sidii daliil ugu noqotay ilaahay wuxuu ku yidhi ibliis markii ay ibliis la murmay ilaahay aadan u sujuud leeyay diiday jannada laga saarayay وكيدي آدن وان دوفسان يا عروتيس جنارتي لا عمريا إلهي وحكول واستفسس يكو خلدوك متقانا كو دوفسو من استدعت منهم بصوتك عدكاغا ورجلك عيدا مدى هذا إفنتريغا شيادين هذا صح متقانا وشاركهم في الأموال والأولاد مركا واستفسس بصوتك بكل جيم سيدا عدكاغا كو دوفسا بالين عدكو وحوال لوجه ذا هست ورعدكو لأن هست كلمة عدكو قيلو نقون كرايو عباد بو نقون كرايو قصر بو نقون كرايو وهم بو نقون كرايو بصوتك هذا محد وقبت هيستا ما دليل بدو هيسا ما يقوم هيان آيات الله سدحاد ولا الوعيد كجرتا سورة أنفال كجرتا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسديه قالت قريش أنت النبي يقول من مركي كبعد دوافيان فوري يوحي سمين شرين يو ما تقانا وحنو عاص يو قاوم تكو دوافون كعبا صح آيات سو دليل معها
aayadda walaal taasoo raacda waa aayadda 12aad ee suuradda ku jirta. Suuradda waxay ku jirtaa soo qabo suuradda alfurqaan ay ku jirtaa. aayadda 5aad waxay ku jirtaa suuradda najm wa antum saamiduun weeyaan. shanta aayadood walaal daliil uma noqon karaan. aan caddayn karaayo yani qof kastoo igula murma sida ixtiraam leban ula doodi karaayo ka ugu weynay qaba inay xaaraan yihiin halka aad soo fadhiistay imika waxaan amaam al-khalaa'iq dadka hortooda waxaan ku qancinayaa oo dadkoo dhan isku kay dhigeysan karaan inuu gudcur gudayo. dhowr iyo 10 xadiisna walaal way dilishaano dhowr iyo 10 xadiisna mid kaliya oo saxiix kuma jiro. mid bay yiraahdaan Bukhari baa wariyay oo la yakununa min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-ma'asif bay dilishadaan. xadiiskaasi saxiix maaha inaanu saxiixayn waxa ku cadeynaysaa kitaabkan ku qoray malaa dhowr iyo 10 arrimood ku jabaya. inuu saxiix waa xadiisku waa mucallaq weeyaan. music way برجور هي سولاد جوايا وحياتي إثني استعمال شر سومالي موسيقى حلم وجميع دول سومالي ولا الموسيقى هرت إنسان كولا شيء بقى صح مقلبك بس عدك موسيقى سمعني هذا الوين جل إسكدو أنا هذا الهيني موسيقى تذكر ولا دش موسيقى إمك بعشان ليه هذا محل هذا فلوتك صار عفو في صار وقته عربت وحبيق عن المسمار صح ني نواليدا صح وحي النص سوى فورد فورد شرني حولها ما كان كحين سومينا فورد شرين وذكما فوريان صح سقفكم هذا تيبا النص دربان كان ولا على ذلك وحنا نسي صعبك تشيبتي يشانتي ولا نسيون صح هذاك وحي ما لها سن كركراعن شرني صار لورين شري فرها إنه كركراع شرني وكان عود كينون نسي وحو نسي موسيقى قلب كانوا حلو مديها كالكولاتر كيمهم حرام بقى مركز حسابتي سوق سنس دي مسكح هذا من النسي وده هول فضين لكن موسيقى نرشة بني آدم أيوة لا تحنا وحويا قلب كان صوص على البرد ما لسه اختراع عصيدة برجع وردك مسكح هذا يكسين شرين نمرق حان وهذا يكسين شرين سيف حسابيا أي كالكولاتر لصوص على دبن وأنا موبايل كان يمكن نقول شرو لبيا فرتان سيدي فرتان كله فتاة قلت لكم بالمركبية مسكح هذا يحمد يكسين ساسو قلبوها لكن هذا قلت هذا قال عود كي أو كلا أما قلب كان موسيقى قرمينا جنو يمي سومالي الموسيقى جدا عصري جاه ولا أما فن كده عصري جاه هو بدني وحب لو البرد لو ويد بلا لبيا فرتنكي كون سقال بقول لبيا فرتنكي وحب لعبين لو نشري عبدي ديقس ورفا عبد السينما وحكب لو عبدي ديقس ورفا دراول بوها قاعد كحين شري سيل أي حاجة كان شري لبور ميوك بيحشري قاعد جو ملك كتشبي تبتنا ماشي بقى قلب بيسوقين لو صوته بليل وساو هيستم بوساسة كراع قلب عودكم بلا يرمى معنا ديون هاس بابوس كسارتي باللحن بلوي هوي بلوي بلوي waxay balay boorama waxay balay baabuur boora markay tagaan hadan wixii ku celiyay markaa halkaas ka sii bulaalayba ilaa heeladii timi walaalihii Hargeysa kooxdii waa bari xidigaha geeska waxna dartay saas uu sii bulaalay صح laakiin qalabkan la garaacay caadiga ee muusiga kamanka dadkii ugu horeeyay waxa la cuudkii ugu horeeyay waxa keenay balay Cabdilaahi Qarsh oo ka keenay meesha la cadan صح waqtiyada walaalaha Hargeysa bilaamay markaa صعب iyo fooridi wixii uu العصريه intii un bay walaal nasisay muusiga dad maqash qalabku intaas صح taasi waxaa jirta sheekad lahayd buugana ku jirta way oo bariyaad yareed sawirayo asuusin sheekada way nadeer sheekada ayaan horta xaqiiqatan markaan ka sheekeynay been baan dareemayo waayo waxaan dareemayaa xasuus dhan iga luntay baa shalay bay weydiinaysay inaan saaxiib nahay oo mataqana milgo la yiraahdo oo mar wadan qurbaa wax ka barata ayaa buug ay xasuusa fara badan ugu qornaan wax badan ugu qornaan ayaa si simple uga lumayo gabadh adigu guriga u nadiifinaysa ka turta dabtaneed aad u murugaysan bay la soo shamsatini wax kugu dhacayo wax qaali ku ahayo ka lumay sidaba la soo ilowsin kara masaan ku dhigay milgo aniga qudhayda taasoo kale bay haysato buugga wali ma akhrin laakiin waxaan u daray inta hor dhacaysa qisaasta sheegis markay doon runtii aad uga damqatay waxaan ku taas kale ku dhacday anigu wallahi qudhayda ma garanay wax ku sheego waxa lagu samraa hadan garanay ana ka samri lahaa way kama samraan wali ayaan sheekadaas waxa weeyaan qof kasta oo dhalinyaro aan waxaan kula taliyaa maanta inuu bartaniyo islaamka iyo shariicada inuu barto صح way hadii kale wala haruusani haruusi diimeed ma qali jirtay haruusi diimeed cabdi guud cadaawna shiray haruusi diimeed ba ayaa lagu sameyn marka haruusi diimeed ba ku dhacay qofka waxay ku dhacday barigaas oo kale indee maan waxba u aqoon far badan ma lahayn diinta oo loo xjiid baan iska ahaa وانا قاني اللغة العربية وحياباس لكن دي ما نقول دي علمي قفلن مال ما كم إذا هن برعتشو إنه أي وحان مقالين وده ده كشكيني سوردو قريها سوردو يلا الملاك مقالن حديث كرونتي عاد بيقول عيا ده وحان مودي كرونتي بنمودي إنه شيء طبعا كرونتي لما هي هو حاول شيء يسقمو فهم سنة وفقلت فهم
dabtan anagina wuu nasii qalad fahamsiiyey gurigaygii baan ku noqday marka anu aad u murugaysan dabeetana sawirradii oo dhan baan soo guray guriga yaalay albamkaygii dhammaa waan jeexjeexay waayo waxaan sidii malaa'igtu idinma soo gelayso صح ma garata malaa'igtu idinma soo gelayso waan jeexjeexay wixii oo dhan dabeetana waan qaaday gabaydu qashin ku daray xasuustaydii oo dhan bay ahayd 2010 ka horreysay ilaa markaan dhalanayay ilaa anigoo yaroo safaraho waxaan ku Addis Ababa markaan joognay kasii dhoofinay hooyaday oo aan aad iyo aad u jecelahay Khadra Maxamed Raan ilaahay cimriga caafimaadka ugu barakeeyo baa ku jirta waxaa ku jirta anagoo diyaaradda halkaas baan ku dhexdeeda kusoo galayno diyaarad Jarmal ah Lufthansa la oran jiray waxaa ku jirta iskuulkaygii iyo Tabori baa ku jirta Teener School baa ku jirta inantan adimkay weydiinaysa Saaraba sawirada ku jirta burcamana ku soo noqday inan labaadan ku lahaa waan qofkii labaadan jeclaaday baa weli aan jeclaa maanta dhowr iyo 20 sano ka soo wareegay xaqiiqatan sawirada ku jira wixii oo dhan intaan kidfay ayaan tuuray beri dambe ayaan walaal ogaaday sawirradii oo dhan horta waan kidfay inantaas ku jirta xasuusaan iga hadhi kareen noloshayda adigu ayaanay wixii ka horreeyay 2010kii maalintaas baabi ninkaasi wixii way beri dambe dana fahmo ninkii inuu wax khaldan noo sheegay anuu wax khaldan fahmay sawirradan uu ka sheekeynay baa wax ma yahayn sawirradan dee albamka iyo mobiladeena ku qaadnay guryaheena yar ma uu kala saaran ka yihiin dee ma uu kala saarin way xilligii naga sawirradan ma jirin ba dee ma iyo photos kama dib lagu qaado sawirada iyo maxay ahayd gacanta ama la sawiraya looga jeedo waxa looga jeeday may waxa la yiraahdaa timzaalka carabtu waxay caabudu jireen deelaata iyo cusub waxa la yiraahdo iyo sanamay taas ma jireen qoriyo iyo alaabooyin sanamkaas looga jeeday sax imika sanamkaasina cilad buu lahaa imika dan waxa jira xasuuso badan oo ilaa maanta sidii nooga lunsan magaalada Hargeysa ayaanay waxa leedahay waa hooyada fanka Soomaaliyeed laakiin markaad timaadid ama qof reer Hargeysa aan markuu yimaado wax alaali wax fan oo ka muuqda oo ku xasuusta ma jiro dhowr jeer baan ku taliyay ama qolada dawladda hoos haadana mid kasta haadaan maxamed mooga liibaan oo kale wuxuu reer Hargeysa wuxuu ahaana very giant buu haayo xagga fanka wuxuu ahaadee camaaliqada fanka cid gaadhisaana jirin akhlaaq ahaan iyo fan ahaan iyo macallin ahaan iyo murabbi ahaan iyo mujaahid ahaan dhinac walba qof uu ahaa noocaas dhowr jeer baan ku taliyay maxamed mooga looga dhigo taalo weyn laga dhiso Hargeysa dhexdeeda taalo weyn oo laga yaabo ilaa 10 mitir inay tahay oo hadduu doono maxamed moogade wuxuu ahaa nin Kennedy hadda jeer dulmiga ka dagaalama macallinna uu ahaa dadka wax bara muusiishana uu ahaa fanaana isagoo maxamed mooga liibaan oo sidaa halka gacantaana ku sita qori AK47 gacantaana ku sita cuudkiisa la oran jiray dadagooye magacaas oo cuudkiisa Hargeysa sagu yaallo ilaa 8 mitir taalo dheer status waxay oranay laakiin waxay imka ilaa hadda u xaniban tahay dad badan bay ila aragtay laakiin waxay leeyihiin wadaadadan yeerin oo maxay oranay wadaadadu waxay oranayaan taswiirtu timsaalku waa xaaraan laakiin ayaanay timsaalku xaaraan maaha maanta maalinta laakiin xaaraan buu ahaa waxa weeyaan shayga waxa jira diinta waxa leedahay maqaasidu shariica maqsadka salaada imka soo tukada ilaahay salaadina wuxuu tarmeysay forforsigan laakiin waxay u baahan tahay sabab leeyahay inuu tukada ba jirta hadda waxa weeyaan sababta ku jirta qofka caafimaadkiisa in lagu hagaajiyo sujuudan uu sujuudiyo kaliya inta scientific proof ba jirta qofku qulqulka dhiigga iyo wareegiisa ay hagaajaa waxa ku jirta salaad in la jamca kaalaya in dadka muslimiinta la siimo oo madaxweynaha iyo baalashaha lagu yiraahdo garbaha iyo cirbaha sima mid ka mudan dheera sax dadka muslimiinta la isugu xidho qofkan caafimaadkiisa lagu wax kasta saas weeyaan hadii lagu adarto shay leeri joojiye khamriga cabina sabab loo yiri ba jirta ilaahay wuxuu tarmaysa dacabtidii hadda sarqaantiyada kale laakiin adiga caafimaadka lagu hagaajinayo shay kasto marka wala la xaraantinimo in cilad ba jirta ciladaasi hadii ay baxdo xukunku isbedelaya tusaale waqti waxa la yiri ay waqtiga hore waxa la yiri sanam timsaalka joojiya sababta loo yiri waxay ahayd carabtu waxay hadda soo islaameen laata iyo cusay hawlay caabud jireen sanamo sababta looga jiray waxa weyn qalbigooda in la ilowsiyo wixii hore bal islaamku ku duxo Soomaha islaamki qalbigooda markuu galay loogama baqanin inay sanam daba caabudaan haday boqol taala sameystaan taaladu imka wata ku taala xamar ku taala in Cabdullah Xasan ku yaalo ee ku taala xawataako ee dhagax tuur ku yaalo mid ba caabudaan halkan waxa ku dhigay maxamed mooga liibaan hadii laga taago xaaraan oo waayde wala caabudey warma maxamed mooga liibaan baa caabudsa taariikh ahaan ilmaha yar dhalan doona walaal konton sano kadib reer Hargeysa ay oran lahaa waayay ninka bisal wana maxamed mooga liibaan waa fanaan murabbi macallin mujaahid intaas buu ahaa marka walaal sawirka looga jeedo waan ku dheeraaday waxa weeyaan sawirka uu lahaa waa xaaraan ee maalinta laga xaaraantinimay yaani carabta maanta laakiin aan xaaraan tahayn waa timsaalkaas waa sawiradeeda ma maahan laakiin faham darro iyo aqoon yaraan iyo beyd gaabnimo ninkaas uu nalumiyay ayuunba wax iga soo laalaagay sheekadu qisada taasi u saabsan iyo faahfaahsan qofku wax ka akhrin kara buu Soomaali badankoodu waa aaminsanayeen oo jirjirje hadda qofka haduu dhinto suurisa lama sayidsan jir walaal imsa qof baa jarsaray bal aabahood bal imka bal imagine hadii awogaaga afraadalka inuu gool la gidaarka marka ay taxasuus macna inta lagu sameeyay way galaaftay waxa galaaftay beed gaab masala gaabku wuxuu kugu ridaa marin ciriiriyoon sax
buuggan intaad qoraysay yacni ama intii aad qortayba dadku bulshadu siyaabo kala duwan bay kole ku dhaliilayaan dhaliilaha maxaa ka mid ah wallaahi walaal horta ayaan nin durbaantumay ilaaq dalbay sax buugga markaan qoray waxyaabo badan baan ayaan qori karay oo kale oo dadkoo dhan ka farxiyo oo dhammaantood soo wada dhaweeyaan ay igu ammaanaan laakiin mushkilad taagan baan doonaya xal inaan u helo ay Facebook hadda artimka biigka halkaas soo dhigo cayd loo qoray war iska daa waxaan iska wax badan oo kale waan qori kari lahaa laakiin waxaan soo wato bal mushkiladana daweysid tabcan xilun bay diray aniga moogta ma ayaan tan oo kaliya maaha waxa jira intaas oo mas'alo mushkiladahina walaal waxa weeyaan mushkiladaha Soomaalida nolol yar oo qaawin baynu taagannahay xaqiiqatan sax oo yar dhinac walba ka aradan mushkiladahina waa 100% laakiin 99% waxa ka hab fahankeena diimeed mahadiinta laakiin sideen u fahanay ayaa mushkiladaheenan faqriga iyo abaaraha iyo colaadaha iyo inaan ismoora doogno oo badhna gacanteena isku xareyno isku xabaalo badhna gaajalayso waxa kamid ah hab fahamkeena diimeed mahadiinta waayo waxaan doonay halka inaan la leexin hadalkay sideen laakiin u fahanay ayaa walaal kamid ah marka aan walaal taa ku leeyahay waxa weeyaan tusaale ahaan imka inaan hadduu heeso ama inaan heeso markiiba waa la caaya wal wiicaya dabeetana dee waa mushkilad taagan inaan imka qoro buug ka hadlaya sidee baa lacag loo sameeyaa lacag la'aan weyn noolaan karnaa bada laakiin haddaan qoran waa faa'iido soo kordhay laakiin tan waaba mushkilad taagan oo inaan horeba usii socon karin hadda bal ilaa xal loo helo marka labadaas way kala duwan soo maa oo mid wuxuu keeni lahaa faa'iido dheeraad ah la'aanteedna la noolaan karo laakiin tan waa mushkiladu in laba qof isku nacaan in dadkii la eriyo in inantii heesaysay la culaadiyo in habeenii maalin isxamano oo deenu fanaaniintu waa waxaas taasan doonay walaal inaan daweeyo marka waa la dhaliilay walaal nin durbaan tumayna ilaaq dalbay weeyaan laakiin tabcan mid aan ku sheegay aniga dhaliishu ma dhito xaqiiqatan haddaan ka baqanayo dhaliishu waxaas deyn ma heesaha kuma dhigan ciwaan magac yar oo laakiin yara sarbeeban aan ku qarinayo ayaan uga dhigi lahaa marka waa la dhalooda way soo maagaan intaas meelaha siga maagmaagaan laakiin waxaan leeyahay waxaas anigana waxba yeelimayso dee qofka kale aad dhegeysan intii meelaha iga caayana isagna waxba u taramayso laakiin waxa wanaagsan buuggaasaan qoray haddii aan ka been sheegay ama wax khaldan ay ku jiraan buug kale adiguna qoro waxaad tiraahdaa intaas qoray waxba kama jiraan oo dabeetana waxba kama jiraan ku ekaanayna laakiin bal waxa saxda dadka u sheeg dina keena qaldan la isku keen dhegeysto marka waa la dhaliilay haddii la dhaliilay laakiin waxaan jeclaan lahaa deen waxbaan qoray wax la qoraa lagu soo dhaliilo mawduuc kale mawduucan sideeda waxyaabo kale ka qorti walaal ma mawduucan imka heesaha والله ما يرضى كان اسمه لي لكن أنا يمكن وأنا إلاوي مثلاً هذا الأسعد وحيهد وحاجرة سجاشن الريموت قطن لما ده هذا كسير تناقل الله وش يقول لي وحس وحارن لكن أنا هين أيشرة حكم ده والله ويبدنيين وحكم ده وحني ده هدان وأنا كل فهم الصومالي وحيكون شيء ده كوجود دين برشة بدن عالم دين مركز برشة هاي حفتي القرآن برشة ده كوجود الريا هل الأمة بين قصر الأمة الموريتانية كليدا وين دي برش بدين لكن أدونك إله الشعوب مسلم كهردن صومالي ضدك وفهم كلي توين دين فهم كده أي كلي تان لكن برشديد آد بيجو بدين قرآن قفك وحفتنا يا لكن ما في بفهم سنة قرآن هل حفتي سيوم بروني الماء والقرآن كلمة هل فهم سيكم جرد وحالم تضبعات مسألة بشراء أو سيدان أو كلا أو وبهاني واحد لقى قرا أو لقى لما سوق مع سوقي وحكم إذا مسألة أي جبا كم إذا أي جو كلا وأدي بلوفقي markaad aragtay islaam badarka dhagax la tiigsanaysa maxaa hooyo ku dhufani deewa oo haduu yahay deewa nijaas yaa kugu dhawaan nijaas arabkiisa nijaas ma halka aad u marayo adiga muxuu ku yeeri nijaastu mi kugu soo hadis adiga marka wadaadadaas ku diray eeyga dadka waxa u baahan eeyga bal in wax laga qoro eeyga goormuu halka markuu marayo nijaas yahay ma arabkiisa nijaasa ma dushiisa nijaasa ma la haysan kara eeyda bal meelaha ku balanbalsan hargeysa basal baa loo helaa laakiin dulmi baa laga galay waxa u baahan masalaas u baahan wax laga qoro waxa u baahan masalada in wax laga qoro magta dumarka u baahan ee la yiri waa konton waxa u baahan masalada in wax laga qoro cadaadis kan la isku taagan yahay waxa u baahan in wax laga qoro habka in wuxuu barano walaal masaxba iyo habka quraanka loo barto in la qoro ihfadul quraanka xiftiya halkay ka taala kitaabka ilaahay iyo xadiiska toona laakiin tadabbur quraanka fahmi baa ku qoran meel walba in amriya waxa weeyaan walaal qabiyadu waa tirabeel aniga tan uu deema taqaanaa dabcan xilun baa diray sida su'aasha duweydiisay wax ma ka sii qori doontaana wali ma dhawaaba wax badan oo kala laga sii qori karaa
laakiin aniga ujeedkaygu wuxuu ahaa halkii gaariye wuxuu gaariye wuxuu yidhi waxaa maanta ii daran buu yidhi aniga maanta buugan qoray waxaa ii darnaa inaan daaro ololkii ragga iga dambeeya midba saari laa dugo siduu usii ololo marka dadkaan u daynaya laakiin anigu iba fur wanaagsan baan sameeyey si fiican heesa adigu si iskuti aad baan u jeclaa kuwa dhegeysataa kuwii hore kuwii dambe may horta waxaan dambe horta ma dhegeysto dadka anigu aan dhegeystay waxaa ugu yar Yurub Geenyo iyo Maxamed Saciid Biike isaga maxaa la ilaahay fanka ku soo celiyo fanka waliba de hagaagsan de hadii jeer waxaan kala iska daayaan ay wadwadaan fanaaniintu dadka ku nacayaan de balaayadan kale saa ugu dhex wadaan fanka ee dhaqan xumada ha ka joojiyaan laakiin qofku fanka ha hees oo waliba fanka yu shaqo kale intuu raadsado fanka shaqo yu ka dhiganin dadku waxa ugu dhaqan xun qofka fanku shaqada u yahay ee saaqada kale lacag ku soo gashaa wax kasta uu sameeyaa fanaan madoon saqiyam le ayaanay oo fanaan hadii noqonaa waa kuma oo Maxamed Nuga Liibaan lacag wali kuma qaadan fanka markay ka qabatay buu hees jiray si wanaag ilaa maanta dhigeysana raaxada ilaa kuwa ugu yaryar kuwa waaweyn dhadhan bay sameeyaan ma dhintaan heesiisu isagoo shaqaysanaya ummadda wax baraya murabbi ah oo macallin ah oo mujaahida ayuu hadana heesay marka fanaaniinta anigu warda waxaan dambe ma dhageysto xaqiiqatan ma fiicana laakiin dadka Yurub Geenyo kala aad baan jecelahay xaqiiqatan Maxamed Saciid Biike heesiis aad iyo wali aad baan jecelahay laakiin hadda igu tiraahdo ugu jeceshay fanaaniinta waxaan ugu jecelahay qofna kuma doorsanayo Maxamed Nuga Liibaan ina mooga baban عندنا كومة دورسانيو أحمد قعيتي يوسف أحمد يوسف أحمد قعيتي عندنا كومة دورسانيو فاطمة عبد الله كاهن فاطمة مانديق ينكر مستر عندنا كومة دورسانيو حليمو خليف عمر برع حليمو خليف مقول ها انت هذا أمين عبد الله حسين انت ورا فنك هرايد دمايا فنك هرايد دما نعم ugu dambeyn dadka wax qora iyo kuwa akhrinaya labadaba حلو وهم كوا حقراء مثل كوا أخرين بوجي مثل كوا أكسي جود حقرية قف كستو حقرية والله قف كستو حقرية وحقرية قف كارتو عدد كسمين مع قاربع حقرية دتك Soomaaliya qaar waxuma akhriyaan badana horta qofka ayna qofka wax akhriya isaga waxa la akhriska sii badida ilaahay nimcu ku sii carafta walkii nabiga carafta falsim sax waad garatay laasimo hayso qoraayadana waxaan leeyahay والله ولا قرايد wax badan baan oran lahaa xaqiiqatan oo de anigu horta qoraamihii waxbaan qorqoraa laakiin marmar laakiin dadka caadiga qoraayada ama title-ka ay qaadan kara oo anigu waan ugu culus baan qabaa laakiin qofka qoraan noqonaya title-ka qaadanay waxaan fari lahaa wax badan umadeena wad garanaysaa markay akhriska taagan yihiin oo in waxida waa lagu sasabeeyaa walaal war markaad wax qortaan intaad wax qori kartaan wax qora waxa waliba nolosha bulshada wax ka tari karaya ama mushkiladaha taagan sida tan oo kala hadeesna caybkan habeenii maalin taagan xallin karaya ama waxay u baahan yihiin nolosheena oo dhan ba aradnaan baan taaganahay qaawin baan taaganahay warbal buugaaga maryaha inagu qabtaa oo dib inoo dadeeya oo wacyigeena wax ku darsada bulshada waqtigaaga maalin uu xun ka sii oo geliyo wax qor qof kasta wax qori karayo ma garatay waxa walaal mid aan ku dhalisanahay qoraayada waxa weyn aan ku dhalisanahay xaqiiqatan yacni iyo qolada buugaagta iibisaba iyo qolada buugaagta daabacadaba cid walba ilaa wax walaal isuma qariyay waxa weeyaan ummadda markaan akhriska ku sasabeeno ummadda buugiina daadu dabcan taaba ka galay laakiin ha u qorin lacag yeeshid fariintaadu inay dadka gaadho wax u qor markaad qortidna madbacadaha wax u daabac dadka hala saayiraan markay wax faa'iidayaan iyagu wax yar ka faa'iidaan wax yar ha faa'iidaan laakiin qofku hadii isagoo loogu daabacayo $1 ama $2 haduu damcaynu $10 faa'iido ka war qofkii qoraaga hayo buugu gabiisaba ku joogo ayaan imka buuga sana wuxuu ku joogo gabiisaba $2 marka daabacada $10 siin kara walaal marka adigu ma doonaysid dadkiina wax akhriyaan xaqiiqatan anigu walaalaan ku jiro laakiin waxa weeyaan warqadka wax qoray buuga iibinayo ilaahay intaad ummadda uga baqataan si fariintaadu dadka u gaadho $2 ama $1 haduu kugu joogo war wax yar saaro oo bal adiguna kaaga soo noqoto wixii aad ku daabacday bulshadana u fududay walaal la wadagtay maanta wadankeena noloshiibin bacmiikan ku siinaba nolosha hadda dadkii adiguna dhiiga ka sii shaqeyn oo ganacsadaha noqonin way ganacsayaasha kale inay liidanayo inayna laayaan iyo inay dhiigana mirtaan lacagteena jaabkana baadhaan bay ay ku socdaan marka adiguna sidaas oo kale aan noqon maalin qof qoraaga intaas aan walaal oran lahayn dadka akhrinaya buugaaga eegana waxaad fariin u diraysaa dadka buugaaga akhriyo waxaan wallahi buuga horta meel dhaxa ka bilaabina ninaan saaxiibnahay ba maalin ii sheegay Cabdiraxmaan la yiraahdo oo nin aad u wanaagsan runtii laakiin iga aragti duwan ayaa buugaygu akhriyay marka laakiin meel dhaxo ka bilaab dadan uu yaababa
meel kala qabsado karaa ma yidhi waxa ka soo horbaxay muusigu waa xalaal uu yaababa laakiin hadduu halkaa hore igala soo bilaabi lahaa marka hore isla fahmi lahayn marka waxaan leeyahay qof kasta buugayga akhriya waxaan jeclaan lahaa inuu xagga ka soo hore ka soo bilaabo si uu soo fahmo waa masalada de mataqaan xoog baan ugu soo labisay ma ogtahay masalada sax markii halka ugu dambaysa waa make-upkii baan halka ugu mariyay halkan laakiin marka hore waan u soo qubeeyey dareyskii baan u soo xidhay meelaha taygii baan ugu giigijiyey halka ugu dambaysa make-upkii marka ila bilaabo oo ila dhamme waxaan oran lahaa laysoo haddaad iga aragti duwan tahay dee hoos hay Soomaaliga haddaad doontii soo badhale soo dhali si buug ka soo horjeeda buugayga soo qor laakiin sida waxaan adii dhaliil kartaan waa taas ayaana sheegay sidoo warqo haddii qofkii doonayay inuu ma taqaanay dhaliil horta adaga u door laho dee kulli aniga leegama weydiin isa lagu dhaliila masa jecesha in lagu dhaliilo laakiin haddii aad ila tashan lahayd baan oran lahaa ummadana waxa u faa'iido badan adigana dee ku dhib yarba wax cadaymood dee buugaasaan qoraya haddii waxaad saluugtay ku jiraan amaan ka been sheegay buug kale ummadda qoro xataa uu ka been sheegay halkaasoo sida saxda ayna waa sidaas iyo sidaas dee qofka akhristaas la keenayo buugaagan hayaga buugayna hayago dee maskaxdiisa iyo maankiisa ha isticmaalo intaasaan walaal oran lahaa iyadan aad baad mahadsantahay cabdi fataax walaal adiga aad baan kuugu mahadcelinaynaa thank you aad baad walaal mahadsantahay